rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saddex mushkiladood oo waaweyn ayaa ummadan ama qarankan ka qaran ahaan yaa haysato adduunyada dhan ay mar walba na su'aashaan ugu tiraahda annaga dhaxdeena isku dhahnaa haddana burburkii kadib 32 sano sii mareynaa jawaabo badan laga bixiyay saddexdaas su'aalood laakiin haddana ma dhameystirno oo intii la rabay ma gaarsiisno oo jawaabtu dawaati xal waafi ah keenta wali ma hayn dadka Soomaalida qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya waxa la yiraahdaa isma xukumi karaan 32 sano ay is xukumi laayeen isu tari laayeen waxa la yiraahdaa xukunka daba socoto dabcan isma amni geli karaan ammaan isma sii karaan kaalmo caalami ah ayay u baahdeen si ay ammaan u kala helaan ama ay u jiraan ama xukuumadoodu ay ama dawladoodu ay ammaan u hesho kan saddexaadna waxa la isma qoodi karaan dal barwaaqa ayagoo ku nool saddexdu kalama maarmaan waa isku wada xidhan yihiin laakiin haddana maanta isma qoodin karaantii yaan taaganahay ayadoo la leeyahay dalkaani dal qani ah waaye waxa dhulka hoostiisa ku jira iyo waxaan la arkayn marka laga yimaado inta dhulka dushiisa saaran ayaa nagu filan oo bar iyo beer iyo bad intaba leh wasiir beyle hadalkiisa hadda ugu dambeeyay ka mid ahay dunida abaaruhu meelo badan ay ka dhacaan waana lagu dhibtoodaa laakiin meel abaartu ay macluul inta gaarto dadka ay u dhamaadaan Soomaaliya ayaa مثالka ah oo la sheega abaaraha maanta la sheegayaa dhul badan oo gobolkan geeska Afrika kamid ah ayaa nala wadaaga haddana xaaladaynu sida ay ku sugan tahay kuma sugna xoolaha la badbaadiyaa dadka la badbaadiyaa meelo badan laakiin nasiib darro annaga xoolaheennina waan arkaynaa oo saddexda waxyaabood ee aan ku faano ee dhaqaalaheena iyo nolosheena ay ku tiirsan yihiin kuwii ugu weynaa oo dadkeena boqolkiiba inta badan ay noloshooda ku tiirsanayd waa kuwa nala tusayay meelaha ay gabranaayeen ayagoo oo abaar daraadeed ama baahid on iyo baahid daraadeed u yaal marka waxaan rabaa mas'aladaas weyn waay isma xukumi karaan isma ammaan geli karaan ismana qoodi karaan midda ugu horeyso isma xukumi karaan ayaa keenaysa waxa laga hadlay asbaabta Soomaaliya hadaatay waxa la yiraahdaa cimilada adduunka isbedelkeeda wax badan kuma daro waa run marka dhinaca warshadaha iyo maxaan ku yiraahdaa fasakhaadda hawada loo yimaadaay wax badan kuma daro laakiin dhinaceenan uga daraayo waan aragnay dhirta waxaan ku haynaan aragnay hab nololeedkeena qayb uu ka yahay in dhirta si xun loola dhaqmo waxaana ku soo kordhay haddana noloshiya naga gashayba si loo noolaado dadkii ayaa dhirtii hadda ka hor 2001 iyo 2002 safarro aan dalka ku bixinaynay ayaan gobolka Jubbada Dhexe yaan tagnay waxaan u tagnay laba arrimood meel waxaan u tagnay beer cambuhu dhulka inta iska daatay meeshiisa uu ku uray ninkii beertiis kala waxaan dhahnay cambaha maxaa jira maxaa u iibsan weyday suuqa ugu weyn wax la geey karo Muqdisho waaye haddaan cambe inta ka raro Muqdisho geeyo deyn al iraacanayaa u dhahay baabuurka deyn iraacanayo inta muxuu isbaara ee jidka taalo ee lacagaha lagu urursanayo hadhow lacagihii isbaarooyinkaas ku baxay iyo lacagaha cambaha uu goynayaa waxa badanaya taas markaa iska dhaafay geedo soo yaala cidii u maatay Soomaaliya guran karta ha gurato kii kalena dhulku ku daatay mucjiso ahayd wax la yaab leh waana dhowr kun oo geed oo camba ah oo meel ku taalo maalintii dambe tuuro kalaan tagnay waxaan tagnay geedii cambaha ahay oo inta la jaray is saaran ayagana waa weyn oo is saaran war waxaana waa cambe sanado badan oo ku baxay maxaa saan loo yeelayaa waxaan isbarbar dhignay qofka noloshiisa iyo geedka noloshiisa waxaan la raqiisanaatay geedka noloshiisa inaan gooyno si qofka noloshiisa ay u badbaado waa iibsanaa waa ku noolaanaa waa cunaa marka yaani duruufaha dadka groundiga dhulka degan ay wajahayaan waxa kamida marka dadka Soomaaliyeed dhirna ma badbaadin karno sida hadda looga dhawaajinayay biyaha dhulka hoostiisa ku jiro meel dheer aan jirin oo qaarkood hadii la qodo inta soo burqadaan banaanka u soo boodayeen ma qodan karo
haddii aanan dawlad rasmi ah oo dalka oo dhan hanagta oo ka shaqaysa aan la helin dawladnimadana aan dadka loo dhoweyn oo aan la gaarsiin marka taasi waa intaas midda kale walaalahaygii samafalka yaqiinay iyo ganacsatada qaarkood ahaa ayaa haddaati ka dhawaajiyey gurmadka waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimiday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddaati walaalkii ka dhawaajiyey dadka soomaalida magaalada muqdisho ee 3 milyan ah milyan waa saas haddaan dhahno milyan kale waa saas oo intaasoo boqol waa saas intaas hadday soo harto min $10 isku darto lacag badan waay aniga waxaan qabaa halkan aan ka bilowno maanta inteennaan fadhido war nin walba jeebkaaga maxaa ku jira ama EVC-gaaga maxaa ku jira hadda aan halkan ka bilowno nambaradu waa kuwaas halkaa ku dheggan aan ka bilowno halkan kelmadaha qurqurxan yaanan ku ekaynine nin waliba kii kaash u hayana haddaba muxuu ahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ama hay-adihii gurmadka samafal ka shaqaynaya waa joogaane $1 ha noqoto ama 10 ha noqoto ama 100 ha noqoto aan u dhiibno kii ay EVC ugu jirto ama bangiga xisaabta ugu jirtana waa kaasaa electronic transfer aad samay kartaaye haddaba intaad samaydo muxuu ahay xisaabaadkaas midii bangigaaga ay ka furan inta aan ka bilowno berrina ha la sheego ha la yidhaha shalay shirki meesha la isugu tegey warar qurqurxoon bas la isuguma tegine intaanaa ka timida ilaahu may $1 noqotee intaanaa ka timida ha la yidhaahdo sidaas aan kelmadaha qurqurxan iyo niyadda san aan ficil u bedelno halkanna aan ka bilowno maanta saacaddan inta aan qadan la aadin aan ka bilowno kadibna anigu waxaan qabaa gurmadka in la qaabeeyo u baahan yahay niyad samaan iyo kelmado qurqurxan oo dhahna keliya kuma firra xukuumadda ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxa haddaanan tandiim ama institution aan loo samaynin ama laga adeejinin waxa waaye ma qabsoomayaan waxaan qabaa shaqaalaha dawladda ha laga bilaabo ciidamada qalabka sida ha lagu xijiyo ardayda iskuulaadka dhigato wasaaradda tacliinta iyo hay-adaheeda iyo waxeeda ha ku xijiyaano hadba intii suurtagal ah $1 $5 1 shilin qof waliba iyo mustawa kasta ahi inta uu bixi kara ardayda iskuulaadka haddii lala hadlo 1 shilin oo xabadda sambuuska ku iibsan lahaayeen ama 2,000 in hal maalin ay bixiyaan way awoodaan haddii lagu qanciyo xooggu waa nagu dhex jiraa wuxuu yidhi muxuu ahay ninkii odaga ahaa risaq reerka waa ku jiraa rag ka soo bixiyo iyo rabaa marka dhaqaale darri iyo waxaan ku gurmana ma le'ine qaabkii aan uga soo bixi lahayn aan camaliyeyno aan u bedelno hay-adaha sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha bangiyada kuwa kale ganacsiga shaqaalahooda ha galaano ha weydiiyaan qof walba maxaa ilaahay hortii oo hooyada Soomaaliyeed ama muxuu ahaa cunuga yarka ee Soomaaliga ee haraadsan ee maxaan ku raraa Soomaaliya koonarka ku nool maxaa u bixin kartaa hal yiraahdo waa huba inay wax badan ay ka bixinayaan waxaasoo la sugayna lacagtana loo keenayaa waa sidaas ay ku timid ogaada malaayiinta dollar ee dunida ay noo keenaysaa sidaas ay ku timid maxaa bixi kartaa maxaa ku darsan kartaa yaa naloo bixin waxaan xasuustaa abaartii maxaan ku raraa 29kii dabcan taasi maan meeday ahayd annagaa samaynay roob la'aan iyo ma ay sameeyeen colaaddiya samaysay inteeda badan raashinaa la keenay waddan Yurub ku yaala laga keenay ardayda iskuulaadka dhigata ee dalkaas soo aruurisay jawaano ku xirnaa bur bac ku jira kisbariis oo bac ku jirta baakad buskid ah intaas yaani uu ka koobnaa arday walba gurigaaga maxaa ka keeni kartaa inta la yiri la keenay raashinkii maraakiiba markaba uu noqday markaba inta lagu soo raraa halkan la keenay war waa yeeli karnaaye wasiirkeena tacliinta waa nala joogaaye boqolaalka kuna ardada ah hal maalin koobka shaahiga ku gashinay ku cabayaan aan weydiisan wasaaradii oo dhan waa nala joogaane war dadkeena wasaaradaha ka shaqeeya intaan u yeerno shaqaalaha aan wax weydiisan oo kuwa bangiyadana ka shaqeeya aan weydiisan oo kuwa isgaarsiinta meel walba u jooga aan weydiisan dadkeena aan ka doonno kaalmada aan u rabno maxaan ku yiraahdaa dadkeena 45 milyan
muxuu ahay wasiir beyle hadda uu noo sheegay waan naqaanaa kaalmada caalamiga siday u baxdo lacagaha badan ee caalamka ku dhawaaqo gabadha haraadsan islaanta cunuga yarka ee muxuu ahay caanaha ula ama muxuu ahay reerka maxaan ku raaa meel hebel ku haraadsan inta gaari karto percentage ay ka noqonayso waan ognahay laana overhead costiga ayaa muxuu ahay dhibaato badan laakiin annaga nuguma aha halkaana baabuur inta biyo looga qaado waa joogaan culimada qaarkood iyo ganacsatada qaarkood muqdisho inta biyo baabuur looga qaadaa gada lagu geyn jiray raashina halkan inta laga qaada qaarkiisa ayaa la geyn jiray meelaha ugu fogfog Soomaaliya waan geyn karnaa markaan annaga geynayno cost kuma geynee ninka kaalmada geynaya asiga isdabara ee lacagtii loo ururiyo dadka iskama dabaro baabuurna kama raaco shidaalna uga mashubta ee marka la yiraahdo anaa gaarsiinayo 1 kilomitir meel jirta ama 700 500 kilomitir dad degan asaa isdabara qofka Soomaaliga laakiin wixii yaraaye la soo aruuriyay iskama dabaro waa sababta ay kaalmadeenu ay uga tayo badan tahay ama uga xoog badnaanayso midda caalamka waxaan rabnaa aan soo jeedinayaa ay waay aragnimaduna tusayso oo shalay iyo daraad iyo tiiro aan soo joogno midda weyn ee inaan isxukunno iyo inaan isdaaweyno iyo meesheeda hataa la hadda middan gurmadka ee degdega ee nafku celinta ah aniga waxaan qabaa saaha loo yeelo ra'iisul wasaare adigoo mahadsan hawshan in loo istaagan qabaa oo wasiirada golaha wasiirada wasiir kasta ahi waxa uu ku soo biiriyay meeshaan in la weydiiyo wax uu jeebkiisa ka keenayana ma ahane shaqo uu qabanayo waay wasaaraddiisa iyo shaqaalihiisa inuu guddi inta ka dhex magacaabo maalin walba la kulmo ee yiraahdo war maanta maxaa noo soo biiray maxaa noogu soo zaa'iday intii shalay maalin walba uu yiraahdo shaqo waay waa shaqo badbaadin ah sida la sheegay anigu muxuu ahay intaasaan soo jeedi lahaa abaaruhu dynamicska waa bedelaan barakaca hadda la sheegay abuuraan dadku markay barakacaan ma dhacdo 100% haddii dhulku uu samaado xataa in dadku inay meeshooda u noqdaan ma dhacayso dadku inta barakaceen waa kuwa ilaa North America iyo Europe iyo Australia jira waay barakaca keen haddaanay barakaci lahayn meelahoodii ay deganaa lahayn joogi lahaayeen ma jiri lahayn muxuu ahay dhulalkaas fog Soomaaliya dhexdeedana waa sida marka waxaan qabaa wax weyn aan qaban karnaaye aan u istaagno muxuu ahay oo aan camaliyeyno u istaagideedana adiga hebelow qofna waxba lagu khasbi maayo qofna waxba lagu xukmi maayo qalbigiisa iyo maxaan ku iraahdaa ilaahay hortiis waxa ula baxayo inaa u adeegtid adiga inaad ka adeegtid waa muhiim waxaan qabaa marka aan sida yeelno wax badan noo soo baxaya maalmaha soo socda xarunta dadka guddiga gurmadka ee la magacaabay iyo xaruntooda iyo meesha ay joogaan iyo inay idaacadaha fariistaan 2000 iyo labadii saddexdii mid ay ma xasuusto mar sidaan kala abaar ay dhaceen hal habeenaan xasuustaa oo aan idaacaddii Horn Africa la dhihi jiray aan fariisanay raggii Cabdullaahi Shirwac aan ka xasuustaa Allah u naxariisto Sheekh Nuur Baaruud ayaa ka mid ahaa akhyaar badan fadhiday oo aan dadka idaacaddaas kala hadlay television bilgaas weyn oo telefishinada maanta noo jiray ma jirin internetka iyo maxaan ku iraahdaa waxa maanta jiray iyo WhatsAppka iyo groupskan iyo Zoomkan iyo waxaan lagu waxismay ma jirin halka habeen lacagtii aan aruurinay dadka qaarkii caruur gabdha yar yar ayaa daabkooda bixiyay oo maxaan ku iraahdaa qof walba waalidkii aabihii ku dhagay aab maxaan ku darsaa si lacag si $10 si $100 si oo caalamka meel kasta joogo marka hawsha hadii loo istaago hawl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeena ma aha bangi hebel intaan uu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan كمبني هبل إنتانو بحي وواح وين لكن شقالي سنة إنت إن أوديعن تأمل مرك قاركود بكبر نانكرته أي بحكرة سيد أكل شقارة بديين أيدو أنا محو أهاي ولا جا جوني ولا جو خصبية أنا أهين مرك وحن قبا عن قابينه حق ونوجرا دقالو ونوجران إن عن قابينه أو عن دسنو عن institutionalize كرينا تنظيم أسمينا وحنا قدمن وأنا جاري كنا عن قبا